dhagaysi wanaagsan baanu ka helay waxaan codsanaynaa sidaa iyo sidii ka sii fiican waxa keen toddobada eedaysane ee maxkamadda hor taagan waxaan ku soo eedaynay kiis isugu jira dil iyo kufsi kaasoo ay wada qayb qaateen si wada jira dhammaantood falkaas waxaa ku geeriyootay allah u naxariistee marxuumad hodon axmed maxamed kiiskan sidaan hore u sheegay wuxuu dhacay 10kii bishii afraad 2019 kiiskan ka dhacay magaalada Garowe gaar ahaan xaafadda waa bari sidii aan sheegay oo isugu jiray kufsi iyo dil waxa si wada jira u soo baaray oo baarista uga qayb qaatay hay'adda baarista dambiyada culus ee CID tiimka Froski Labka ehelada gabadhu ka dhimatay marxuumadu allah u naxariisto iyo reerkii qabay waxaana lagu soo qabtay arintaas falkaas haduu dhacay toddobadan eedaysane waxaana si toos ah marka laga reebo ninka la yiraahdo Maxamed Sadiiq oo ahaa isagu qofkii ugu horeeyay ee gacanta lagu dhigay tilmaamay oo sheegay lixda kale isagu Maxamed Sadiiq wuxuu isagu bixiyay qiraal buuxa tiro ka 3 jeer haday tahay hay'adihii baarayay iyo haday tahay qiraal uu ku bixiyay garsoore hortii warqadina aanu hayno sidoo kale waxaanu haynaa video uu ka hadlayo kuna tirinayo dadka dambiga la galay ku tilmaamayo qaabka ay u galeen haddaba 10kii bishii afraad 2019 goorbaad marxaba ayuu maxamed bixiyay waraysigii koowaad wuxuu bixiyay 10kii bishii afraad 2019 wuxuuna sheegay warkan hoos ku qoran waxaana soo qaaday buu yiri baabuur bas ah waxa baabuur bas nagu soo qaaday oo nagu keenay guriga falku ka dhacay ninka la yiraahdo Axmed Saciid Abshir waxaanu ahayn buu yiri saddexna aniga Abshir iyo Axmed Saciid Abshir ayaa darbiga guriga ka soo booday wuxuuna u dhacay guriga Abshir ma horta Abshir ba darbiga ka soo booday oo guriga u soo dhacay Maxamed Saciid oo warka bixinaya ka soo booday wuxuuna u dhacay guriga annagana asaga ayaa naga furay kadib waa albaabka gajeelka meesha uu furay darbiga ka soo booday kadibna gajeelka uu naga furay leeyahay wuxuu guriga kadibna wuxuu guriga ku garaacay islaantii joogtay way ka furtay kadibna Abshir islaantii ayuu qabtay oo bac madaxa u galiyay mara yarna uu ku ceejiyay wayna dhimatay waxaana guriga baaray Axmed Cabdulqaadir Saciid baa guriga baaray dii falkaasi dhacay gurigii buu baaray yiri wuxuuna ka helay lacag dhan qiyaastii 200,000 lacag aan ku qiyaasayo oo shilin Soomaaliya ayuu guriga ka helay oo kala baxay Maxamed Sadiiq isaga ayaana qaatay lacagtaas waxa guriga joogay wiil yar oo markii falku dhacayay dibadda u cararay ninka jareerka ah ninka jareerka ahna guriga wiil yar baa joogay markii falku dhacayay oo dibadda u cararay ninka jareerka ayaa gabadha kufsaday oo fuulay kadib Abshir wuxuu mar labaad ka booday darbigii ninka jareerka oo la socday kulay nimanka nin kamid ah weeye sida uu sheegayo magaciisa ma sheegay laakiin ninka jareerka waa adeegsaday ereyga ayaa gabadha u galmooday uu leeyahay kadibna Abshir sidii oo kale ayuu darbiga uga booday wuxuu mar labaad ka booday darbigii uu horay uga soo booday aniga iyo saacidna albaabka ayaa ka baxnay haddaba Maxamed warkii cadda ee uu bixiyay sida falkaasi u dhacay ayaa waraysiyo raggaasi lala yeeshay midna ma qiran ragga kale marka iyagu midkoodna ma qiran falkaas laakiin waxa lagu tixraacay oo lagu soo qabtay oo meesha lagu keenay warka Maxamed Sadiiq sababtu waxay tahay Maxamed Sadiiq magaalada Garowe hawiga ah ummadda joogta la arkay ayuu wuxuu ka tilmaamay oo ka soo qabtay 6 nin
marar badan ilaa 3-4 jeer oo lagu celiyay waraysigiisa mar fiidoo laga duubay mar garsoore hortiis uu ku qiranayo mar uu ku qiranayo hay'adihii baarayay hortooda intaba meelna kama u leexan markasta intaasuu tilmaamayay magacyadooda meelaha ay joogaan kulli safarka ku wada fiiqay gabadha ka dhintay Cabdi Maxamed Faarax ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa in cadaaladda ka gaaro kulligeena cadaaladda ayna sugaysa maanta halkaas inoo jooga muddada inoo xigtana markii qareenku jawaabtiisa keeno baan fadhi kale ballaminaynaa maxkamaddu way inoo xiran tahay waxa maanta hortaaganahay maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Garowe gobolka Nugaal iyadoo loo galay kiiskii Hodan Axmed Maxamed Shallaysane kiiskaas oo dhacay bishii 14keedii 2019 kiiskaas hadda maraya sanad iyo barmeelaha ayaa maanta waxa lagu galay magaalada Garowe isagoo in badan soo jiitamayay jiitankaas oo u eelayna in ay ama dhaliilayna in dawladdu ka gaabisay ilaahay mahadi maanta ayaa lagu galay magaalada si fiican buu hadda u socdaa dhageysigiisii koowaad si fiican buu hadda u socdaa dhageysigiisii koowaad waana mahadsan yihiin qareemada iyo eedeymaha loo soo jeediyay eedeysanayaasha maantana iyadoo tahay taariikhdu 26 bisha ayaa wax lagu galay dhageysigiisii koowaad waana u mahadcelinayaa TV-yada iyo raadiyaasha Garowe iyo Darjir waa ku qanacsanahay sida hadda u socdo xilliga kan sida u socdo Axmed Maxamed marxuumad Faarax Shallaysane marxuumad Hodan walaalkeed odayaasha iyo nabadoonnada intay soo jeediyeen waxaan ku darahayaa xeer ilaaliyaha gobolku wuxuu noo sheegay inuu maqan yahay nin la yiraahdo Burhaan oo nimanka dambiilayaasha ninkii ku soo qaaday baska ku soo qaaday ninkaas inuu maqan yahay Faransi laabka uu soo qabtay dheecaanka uu soo qabtay ninkii lahaa inuu maqan yahay waxaan dawladda ka codsanaynaa iyo laamaha dambi baarista ninka inay raadiyaan gacantana ku soo dhigaan ninkaas oo naloo cadeeyay inuu maqan yahay Faransi laabkii siina yaalo magaciisana la yiraahdo Burhaan nimanka dambiilayaasha ku jiray haddana maqan ahna ninkii markii horena gaariga ku keenay markii dambana gaariga ku qaaday ahna ninka kufsaday gabadha oo Faransi laabku uu soo qabtay ninka in gacanta lagu soo dhigo oo maxkamadda la hor keeno baan codsanahaynaa annagoo eheladii gabadha marxuumadda sida maanta wax u bilowdeenna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan sidoo kale aan ka xunnahay hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda wasaaradda arrimaha qoyska iyo haweenka oo meesha tan ka maqan oo aan cadaalad aan u ahayn oo aan ka meeshaas ka soo qayb galin wax weyn baan ka tirsanahaynaa kiiskaana intuu leeyahay waa la arkaa in ciddii uu khusaysaba ay ka qayb qaadato oo waxaan rabnaa sida uu yahay kiiskaas cadaaladda loogu raadiyo baan codsanahaynaa waxaan codsanahaynaa meesha maanta laga wado in laga sii wado baan codsanahaynaa biidnillaahi kariim